oo gobolka awdal ee la qadiyay mas'uuliyadoodii iyaga ay saaran tahay xajkana Soomaali oo dhan way heshay gobolka iyagaas baana ka maqan madaxweynaha federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre in arrinkaasi ay wax ka qabtaan oo gobolka awdal ee la qadiyay mas'uuliyadoodii iyaga ay saaran tahay xajkana Soomaali oo dhan way heshay gobolka iyagaas baana ka maqan dadkeena wax koota xaj ah la siiyay gobolka awdal ayna jirin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaalahay waxaan doonayaa inaan inogeysiiyo إعلان يربان دوني إنه نوغسيو أو حجك كصابسن ولا وحن دوني إنا نلو ذاقو ولا لهي حجيدة هي عامهان دادك كنول قبل كان أوضل يسلل أنغو حملوينكي حجك دادك كحين يمدو إلا أفري لواتن سنة قياستي وحا dhacday sanadkii hore ee 1445 hijriyada oo waafaqsan 2024 iyo sanadkan oo ah 1446 hijriyada oo waafaqsan 2025 in dadkeena wax koota xaj ah la siiyay gobolka awdal ayna jirin taas oo mas'uul ka yahay wasiirka awqaafta ee Soomaaliya Mukhtaar Roobow Abu Mansuur laba jeerna aan ugu tagnay xafiiskiisa haddaba madaxweynaha federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Barre in arrinkaasi ay wax ka qabtaan oo gobolka awdal ee la qadiyay mas'uuliyadoodii iyaga ay saaran tahay xajkana Soomaali oo dhan way heshay gobolka iyagaas baana ka maqan waana mas'uuliyadiina waxa iska leh wasiirka awqaafta hadii arinta waxba laga qaban waayo annaguna waxa aanu raasan doonaa xaq iyaga meeshii aan ka helayno wabillahi tawfiiq.